السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدرين تمضنو كسور هذا برنامج قارو كويغينو قبل كان سيتي أو قبل هضنا إسلام مركزين إلى هيدغي خيرات كلا دوان أو سيدا بيا دولك هوستيسا إلى هاي كمان نستي إسلام مركزين سيدو كلا باحدي سؤال أي أبادان تاي وحا uleeyahay banan kala duwan oo ku haboon dhinaca maalgashiga sidoo kale gobolka City waxa uu leeyahay goobo kala duwan oo dalxiiska iyo maalgashigaba ku haboon hadaba goobahaasi waxa kamida goobaha haday tahay dhinaca maadaragtaan biyaha kulul oo gobolka City ku yaala meelo kala duwan kaga yaala haday tahay aartu oo ku yaala meel u dhow harmukale oo goob iyaduna biyo kulul leh oo dadku ay u tagaan inay iskaga dacar bixiyaan sidoo kale biyo kulul ayaa iyaduna laftigeeda jirta kaas oo maadaragtaanay sida laga warqabo meeshaasina ay tahay meel ku haboon iyo meelo kale oo aan hadda soo koobi kareyn haddaba gobolkeenan oo gobol aad u haboon dhinac kastaba ka wanaagsan isla markaasina jaarla haday tahay deegaanka Oromia anfarta jaarla ayaa waxaan maanta marti ugu barnaamijkeena Maxamed Cumar oo qurbo joogta u dhalatay gobolkan City ayaa waxaan marka hore weydiiyay bal doorka qurbo joogta ay ka qaadanayaan dhinaca maalgashiga aad baad u maasatay walaalkaygii Xasan Ibrahim ku mahadnaqaya hada wax fiican ayaad maanta taabsatay oo maaragtay qurbo jooga ha iska weydiinay kolka arinta aad sheegtay dadka way ku taagan tahay imika wadiga arkay wadanada jaarkeena haday noqoto Kenya dadkii way u soo noqonayaan oo maaragtay programo ilma dumarkii baa beera iyo lo iyo ku beertay dhinaca maaragtay meel magac leedaho kolkaasi dhulkeenana waa dhul hodana oo lo iyo wax kasta lagu beeri karaayo oo bihi Ilaahay dhigay waa sidaa sheegtay dadka maaragtay in la sensibiliseeyo oo la soo dhaweeyo kii waxaysta oo haday beero tahay laga siiyo oo loo faciliteeyo oo maaragtay madaxweynaha kelinka sharaade Mustafa iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dawladda maaragtay ninka gobolka haysta gobolka City oo dhalinyaro ah Ibrahim in maaragtay la soo dhaweeyo qurbo joogta oo maal gashadaan dhulkooga hawshan inagu socoto wad arkaysaa dhinac kasta inaga socoto maxay noogu socotaa de meel waxa la arkayaa Ilaahay dhigay nolol Ilaahay dhigay oo biyo iyo dhul Ilaahay dhigay iyo khayraadka ayuu dhigay biyaha kulul sheegaysid meel de khayraad digin dagaal lagu ma soo qaadayo oo inta oo sanad kuma soconayso kolka dadkeenu waa inay fahmaan ka qurbo joogta iyo kuwa u dhashay Ilaahay wax siiyay ee maaragtay dhulkan waa dhul ballaaran waa dhul aad u ballaaran oo khayraad Ilaahay dhigay waxa jirta dadkan qurbo joogta dadka gudaha jooga ee Ilaahay wax siiyay in la soo dhaweeyo oo la dhulkiina maal gashada say dad ugu helaan shaqo inaga helaan oo dhulka isku ballaadhay oo dhulkiina iyo iibsada kolka aad baad wax fiican baad ka dhawaaqay ka warqabtid imaka waxa jira ceelal iska daadanaya oo biyo iska qulqulayaan oo ku yaala gobolkeenan degmooyinka sida Axari oo kamida Shiniile Gabi marka bal waxaad noo sheegtaa bal cilmiga aqoonta dhinaca beeraha dadkeenu sidee bay uga maarsami karaan dadka kale shisheeye ee wadanka ay wax noo beer leeyihiin bal fikirkaaga ku aadan sidee baa looga maarsami karaa baad leedahay oo iyagu ay wax u beeran karaan Xasan hadal fiican ayaa tiri nin waxa jira qurbo joog ah oo meel maaragtay gobolka Shiniile aad sheegaysid ka waxeeyay beer ka waxeeyay beertii aqalu ka iibsaday ninka waan ku soo qaban oo maaragtay ayaan dhow la ii sheegay oo Ilaahay baa barakeeyay oo maaragtay waxa uu ka beero Jabuuti baa la geeyaa beerta waxa uu ka beero Jabuuti baa la geeyaa bishiiba intaayo goor oo maaragtay in gaariga dhowr sano ayuu maaragtay ka helay faa'iido weyn alla weyn kolka muhiimku waxa ugu fiican wadan kasta kolka la maal gashanayo xeerka iyo ugu horeeya xeerka dadkan maal gashanaya
iyo meeshan uu maal gashanayo xeerka way fiican tahay inaa xeerka dadka loo sheego say ku maalgashanayaan loo sheego oo maaragtay dhulkii ha iibsadaan oo maaragtay laysku soo noqnoqon laakiin aan soo qaato degmada Ayshaca qurba joogtu waxay ka samaysay kulliyad farsamo si ay dadka deegaankaasi u bartaan xirfadaha kala duwan balaarintaasi qurba joogtu ilaa hadda kulliyadaasi sida arkaysa xarunta magaalada Ayshaca waxa laga sameeyay goobo kala duwan oo ay xukuumadda federaalka uga qorshaysan inay warshado ka samayso sidoo kale waxay ka samaysay mashruuca laydhka dabaysha laga dhalinayo oo Ayshaca waxay leedahay dabayl xoogan taasoo caylaweyn lagu magacaabo waa hawshaasi way socotaa bal qurba joogtii hawshaasi gashay bal kulliyadaasi iyo madaragtaanay manaafacaadkeeda bal nooga waran wallahi in maalgelinta lagu sheego xasan waa qalbad dad waxaa jirta waxba haysan oo lacag yar haysta oo qalbad haya dee qofka qalbadda haya unbaa ku guulaysta commerceka lagu sheego xasanow kolkaasi dadka ilaahay wax siiyey ee adduunka dacaladeeda kala joogta walaalahayow dhulkiina ku foorsada oo maaragtay dadkan qurbaha jooga xasan stress badan bay ku nool yihiin ubadkii bay ka ilaalsanayaan gaaladii ma sahlano kolkaasi ninku wuxuu ku nastaa dhulkiisa inuu wax ka waxaysto kolkaa dadkii ilaahay wax siiyey ay ubadkii u koraan ee waxaystow hadday tahay 20 kun hadday tahay 30 kun hadday tahay 50 kun oo dollar hadday tahay 100 kun boqolkiina kun waxbuu inii tari beri toole labalaabkeed baad ka helaysiin ee dhulkiina maal gashada hadday tahay Ayshaca hadday tahay Shiniile hadday tahay dhulka beeraha laga waxeeyay biyaha maaragtay u soo booday la sheego ee beeraleyda laga dhistay ee ka dheereen Shiniile ka dheereen kolkaa dhulkeena dhul ilaahayna siiyo ilaahay baa na siiyey kolkaa waa inaan maaragtay dhulku dadku ka badan yahayba dadkeena dhulkaa ka badanba kolkaa in la isku ballaariyo oo dadka hadday aqala noqotay hadday meesha wax laga waxaysanayo beero dhul aqala laga istaajitay iyo dhul beero loogu talagalay dhulka beeraha loogu talagalay dadku maaragtay inta hektaar intay tahay inaan maaragtay dee dhulka laga xakumo loo sheego qofkii intuu iibsan karaayo intaa hektaar intay tahay intuu kula wareegi karo intuu ka iibsan karo waxaa dhan waa in la ogaado si inakuna maaragtay adiguna barnaamijka uga soo waxaysid oo dadku maaragtay hadday Australia tahay iyo hadday dadka Canada jooga tahay iyo hadday dadka Ingiriiska tahay soo dhawaada leedahay oo maaragtay qorday maxamedow wali ma jirtaa iniga qorshayaal qurba joogta oo intay wax isku darsadaan 5 qof 10 qof mashaariic inaad gobolkan city waa idin baahan yahay waa dhulka ballaaran ee maaragtaane wax camiro u baahan ma jirtaa bal qorshayaal hadda idin qorshaysan oo aad ku maal gashanaysaan gobolkan city wallahi waa hadal fiican kolba anaku isla soo qaadanay aniga maaragtay 6 nin oo kale inaan dhulka maaragtay beeraleyda ee Shiniile ka dheereen adiga waa kala tashaday ahayd kolkaasi 7 qof 7 ilaahay nabiga oo garanaysa waa la wada hadlay foodaan isgelinay kolkaasi adiga waan ku diraynaaye dhulka maaragtay inta halkii hektaarba intuu yahay inaan noo soo ogaatid oo maaragtay isku tagno gacmooda jir baa wax lagu qabsadaa gacmooda jir ayaa wax lagu qabsadaa kolkaa way fiican tahay 10 qof inaan maaragtay isku tagno oo 10 qof meel isla iibsano 10 qof ay soo galba meel isla iibsadaan 10 qof ay soo galba sawa heer lagu gaadhaa ee qof kaliya taxasano waxba ma qaban karo laba wax ma qaban karto imanka magaalada Shiniile nawaaxigeeda waxaa jira qurba joog sidaas oo kale oo ku timid baaqi ra'iisul wasaaraha oo ka samaysay mashaariic kala duwan sida biyaha macaan warshado soo saaro waa qurba jooga warshado kala duwan baa ka jira hadday tahay warshadahaasi magaalada Shiniile hadday biyaha tahay hadday furaashaanta tahay hadday maaragtaanay warshada daqiiqda tahay lama soo koobi ka idinka qorshaysan maadaama xukuumadda diyaar idin la tahay oo ay inaad ma dhulkii diyaar idin la tahay maxaad ku boorinaysaa qurba joogta u dhalatay gobolka city gaar ahaan kuwa maaragtaanay beesha Ciise in ay gobolkoodan maal gashadaan maxaad ku boorinaysaa dhulka beeraleyda dadku doonayaan inay maaragtay beera ka waxaystaan oo dad isla sheekaysanay diyaar bay yihiin kala xiriira dadkaad garanaysiin hadday dawladda tahay
hadday gobolka tahay hadday xasan cabdi tahay kolkaa waa linii faasiilitaynayaa qurba joogow waddankiina maalgashada meesha unbaad seexanaysiin oo hurdo fiican seexanaysiin nin kastaba meeshiisa laga garanayo ee dhulkiisii tahay dee waa talyaani rooma jooga kolkaan waxaan inagu waaninayaa isku tega 10 oo maaragtay beera ka waxaysta oo lo ku beerta oo ari ku beerta adduunkii wuxuu ku dambaynayaa harun aad iyo aad baad maxamed u mahadsan tahay sida fiican ee barnaamijka nagala qayb qaadatay insha allah waxaan soo qaadan doonaa barnaamijyo kale oo isaguna ku saabsan doorka qurba joogta sidii maad aragtaan ay maalgashiga kasakow ay waddankooga u bisilaayeen hadday ay dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaba ujeedinaynaa taan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono wixii tala iyo tusaalaha waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefonkayga kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa niyo maxamed oo barnaamijkayga la qayb qaatay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu